doorashadii 13aad ee madaxtinimada wadanka Malaysia ayaa waxay dhacday maalinimadii shalay waxayna shacabku dooranayeen cidii ugu fariisan lahayd kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 222 xubnood muddada 4 sano ee soo socota waxaana ku baratamay labada xisbi oo ugu waaweyn ee wadanka kuwaas oo kala ah xisbiga dawladda Barisan National oo hogaamiyo ra'iisul wasaaraha iminka talada haya Najib Razak oo dhalay ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay wadanka Malaysia xisbiga kale oo isku baheysteen saddexda xisbiya mucaaradka lagu magacaabo PKR ayaa waxa hogaaminayay ra'iisul wasaarihii ku-xigeenkii hore Anwar Ibrahim waxaana codeeyay 13.3 milyan oo shacabka reer Malaysia kuwaas oo ka kala codeeyay guud ahaan 14 gobol ee uu ka kooban yahay wadanka natiijada oo soo baxday saqdii dhexe xalay ayaa xisbiga dawladdu waxay ku guuleysteen 139 kursi halka mucaaradkuna ay heleen 89 sida uu qabo dastuurka wadanka ayaa waxaa si rasmi ah maanta xafiiska ula wareegaya ra'iisul wasaaraha iminka talada haya ee Najib Razak wadanka ayaan ka dhicin wax rabshado ah halka mucaaradkan ay muujinayeen shaki badan oo ku aadan in codadka lagu sameeyay isdabamareen balse waxay codsadeen in dib loo eego dhammaan labada dhinac ayaa waxa ay ka midaysan yihiin horumarinta dalka taasoo Malaysia wadan muslima mudan hanaanka dimuqraadiyadda mid loogu daydo xisbiga iminka talada haya Barisan National oo hoos yimaado xisbiga UMNO oo ay ku midaysan dhammaan shacabka Maleeshiyaanka ayaa waxay wadanka maamulayeen 56 sano laga soo bilaabo 1957 markii ay xurriyad heleen waxayna wadanka u horseedeen horumar la taaban karo Saciid Cumar Universal TV Malaysia